masalka saddexaad waa qof dumara wuxuu leeyahay waxaan ahay gabadh wax ka barata Turkiga waalidkay baa waxay igu amrayaan inaan Yurub u sii tahriibo haddaan ka diido arrinkaas ma ku dambaabayaa su-aasha jawaabteeda waa maya kuma dambaabaysid ajir baad ka helaysaa masalada tahriibku laba macnay ka dhigan tahay kow gabadhu inay safarto ay maxram la-aan safarto oy safar khatar badan oo dhuumaal iyo bad iyo qardajeexa gasho ay nafteeda khatar geliso kow safartan aan xaajada iyo daruurada ahayn ee bilaa maxramka ah ee weliba khatarta badan lama ogola naftan tahlukada lagu ridayana ma banaana meesha loo socdana intii aaday baa faraha kaga gubatay ubadkoodiina faraha ka baxeen iyaguna si ay yeelaan la-oo gaaditaanka dhul gaalo khatarta uu leeyahay ee sharcigu uga digayey waynu aragno waynu taabannay meesha sidaasihi waa safarkeedu safar macsiya way waalidkana safar macsiya in lagu ateeca ma banaana in lagu diido ajir baa laga helayaa waayo ridaha waalidka waxaa ka mudan oo ka horeeya rida rabbi subxaanahu wa tacaala nabiguna wuxuu yihi laa taacata limakhluuqin fii macsiyati illaah qof aadamaa laguma ateeco wax macsiya ilaahay markay waalid noqoto xataa ilaahay wuxuu yihi qur-aankiisa wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuطichuma wasaaxibhumaa fi dunya macruufan wixii adduunyaha si wanaagsan ula dhaqan shirki baa tusaale loo soo qaatay dembiga kalena waa lamid sacd ibn waqaas radi allahu canhu ardahu yadigu baari u ahaa markuu islaamay waxay tiri cuntadan ka soomi ilaa aan dhinto haddaadan diintaa ka noqonin wuxuu yihi oye waalidkay baata waa ku jeclahaye laakiin diintan inaan ka noqdo waxaa ka dhow inaad u dhimato muddo markay gaajaysnayd ay aragtay inuusan jixinjixayninna cuntada iska cuntay saa darteed daacada ilaahay baa ka horeysa daacada iyo biriga waalidka waalidka xaqiisu wuxuu ku dhammaadaa markii xaqa ilaahay la soo gaaro wixii ka dambeeya waalidku xaqumala daacana ma laha biriga waalidka iyo wanaagiisuna waa inaadan ka yeelin oo macsiyadii intaad ka samayso uu sababta kugu ahaa isna uusan kula dambaabin wabillahi towfiiq